محمد عبد الله فرماجو waxa uu noqday siyaasigii ugu horeeyay ee mushaharad u bilaabay si joogto ah ciidamada dalka waxa uu gacanta ku dhigay magaalada Muqdisho waxaan bilawnay inaan ciidan ka tirino oo aan tayano oo tababar iyo maxaan ku rahaa qalab u baahan yahay aan siino kadibna aan ugu xijino daryeelkooda oo ah mushaharadooda raashinkooda caafimaadkooda keelintana laga warqabo xaruurtiisa iyo reerkiisa iyo qoyskooda taasa waxay keentay runtii in laga xoreeyo magaalada Muqdisho dadka nabadiidka ah oo runtii muddada 3 sano 4 sano dib ku hayo ummadda Soomaaliyeed in magaalada ay si cad uga baxaan kadib markii ciidankeenu uu helay waxa uu u baahnaa niyadooda iyo kor u kacday ay bilaabeen marka howlgalooda inay adkeeyaan waxay suurtagelisay in maalin cad ay hayn waayaan kuleelkaas oo ay ka baxaan magaalada Muqdisho taasna waxay ku timid runtii dadaalkii istiraatiijiyadii iyo policy annagu aan bilawnay xamar kaliya ma ahayn wixii howlgallada ka socdeen gobolada Gadow iyo Jubbooyinka soo kale xildhibaan waa ku ka mas'uuliyad isa saar oo codkaaga si Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si uu muddo 4 sano ah dalka Soomaaliya dib caalamka ugu soo celiyo xildhibaanada ku guuleysta in beelahooda ay soo magacaabaan ama ku guuleystay waxaan ka codsanayaa baarlamaankaas in aysan khaladkii hore loo galay aysan gelin inay markaan dalkooda iyo shacabkooda iyo dadkooda u heeliyaan ay doortaan oo ay siiyaan codkooda haddaad codkiina isiisaan waxaan ballan qaadayaa dalkan 4 sano gudaheeda inaan ku istaajino oo wax alla wixii dowladda laga rabay aan keenno ay ugu horeyso cadaalad haddii aadna doorataan hawshii aan hore u qabanay qaybtii hartay iyo dhameystirnaa waxaan rajaynaynaa inaan sameeyno hawshii aan qabanay mid ka wanaagsan haddii ay biiraan abnasantii farmaajo mudnaan tali